السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ma jirtaa hawl intaad bilowday kadibna aad ka caajistay ama aad ka niyad jabtay? waxaa la dhahay haddaad heli lahayd qof mar kasta ku ag taagan ama ku ag jooga oo mar walba naftaada dhiirigeliya, waxaad ahaan lahayd bani aadamka qofka u wanaagsan. haddaba maadaama aadan lahayn qof mar kasta kula taagan, waxaan kuu soo gudbinayaa siyaabaha ugu fudud ee naftaada aad ku dhiirigelin karto. kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. من استنار بدربه بالعلم نورا واتخذ التقى حللا ما كان يرفع مرءا. qodobka koowaad, naftaada heshiis la gal. heshiiska aad naftaada la galayso wuxuu noqon karaa mid yar ama mid weyn. tusaale ahaan, naftaada waxaad ku tiraahdaa haddaan 2 bag oo qur'aan ah akhriyo, waxaan kuu samaynayaa casho qaali ah. qodobka labaad, iska dhig qof markiisii hore dhiiranaa. haddii jirto howl aadan ku dhiiranayn in aad qabato ama caajis kaa saaran yahay, waxaad marka hore si nafsaani ah naftaada ugu dhigtaa qof xiise u haya. waxaa la yaab leh, isla daqiiqad gudahoodii niyadaada way isbedelaysaa oo xiise ayay ku gelinaysaa. qodobka saddexaad, waxa aad isweydiisaa su'aalo niyadaada kor u qaadayo. subax kasta markaad toostid, waxaa isweydiisaa su'aalahan oo kale: waa maxay sababta aan u faraxsanahay maanta? waa maxay sababta aan ugu faraxsanahay waxyaabahan? dareen nooce ah ayuu waxaan igelinayaa? waa muhiim in aad dareento siduu kuu dareensiiyo. ha isku koobin su'aalahan oo keliya, ka fikir kadibna su'aalo noloshaada ku saabsan oo ku farxad gelinaya ama ku xiise gelinaya isweydii subax kasta. 4. yeelo hadaf sareeya. waa inaad yeelataa hadaf weyn iyo hadaf cayiman. hadafka sareeya waxa uu naftaada gelin karaa dhiirigelin badan, siiba markaad maalin kasta tartiib ugu sii dhawaato hadafkaaga. qodobka 5, waxaad ka bilowdaa wax yar kadibna hore u soco. waxaad ka bilaabi kartaa oo keliya inaad miiska aad wax ku akhrinaysid iska habayso ama aad masaxdo. markaad intaa qabatid, waxaad ka helaysaa dareen ah in aad wax qabatay, kadibna hore ayaad u socon kartaa. qodobka 6, hawshaada ka bilow inta ugu culus ama ugu adag. marka aad isdhaafisid ama aad qabatid hawsha ugu culus ama ugu adag ee aad maalintaa leedahay, isla markiiba waxaad dareemaysaa in maalintaadu fududahay. qodobka 7, waqti qaada markii aad hawsha dhammayso. halkii hawshaada si degdeg ah aad u bilaabi lahayd, waxaa qurux badan inaad waqtigaada si degan u qaadatid, kadibna aad kordhisid xawaarahaada. qodobka 8, naftaada cidnaha la simin. marka aad naftaada la barbardhigto naf kale, wuxuu dhaawac u geysanayaa kalsoonidaada iyo dhiiranaantaada, waayo mar kasta waxaad isku cabirtaa qof guulo badan xaqiijiyey. marka waxaa habboon inaad naftaada oo keliya isbarbardhigto oo aad isdhaahdaa maxaan horumar ah oo aan xaqiijiyey. qodobka 9, xasuusnow guulaha aad gaartay. waxaa si fudud loo iloobi karaa guulaha aad gaartay, waxaana mar walba qofka ku soo laalaabta guuldaradii kaga timid noloshiisa. si aad horumar u gaarto, waa inaad kala badashaa labadooda oo aad xasuusataa guulahaad gaartay. qodobka 10, ku daya dadka wanaagsan. ma leedahay qof aad hiigsato ama aad jeceshahay sifaadkiisa? waxaa nolosha bedeli kara ama kobcin kara in aad dadka sifaadka wanaagsan ku dayatid. halkaas ayuu ku egyahay muuqaalkeena maanta. fadlan haddii aad ku cusub tahay kanaalka subscribe saar. waadna ku mahadsan tahay daawashadaada. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.